laakiin qof inaan u tagay weli war wax isii ma dhihin anigaaba anoo saas u baahan xabaddan hadda ka gado aan kunka dhiibaa waxaan la joogaa maama nadiifa oo ka mid ah hooyooyinka Soomaaliyeed isla markaana way dareen hadashay xilli aan halkan marayay ayaan arkay maamadan balse waxaan ku coday inaan awood kaliya aan awooday tahay inaan baahiyo sheekadeeda TV-ga Hirasho ayaan ku laabtay kadibna kaamirada aniga kaamiramanka waxaan imaanay halkan kadibna waxaan jeclaysan inaan baahino sheekadeeda maamadan gacanta ayay ka jabantaa xilli ay kala celinaysay wiilal dhalinyaro ah oo halkaas markaas ku caawinaysay sidoo kale waxyaabaha la yaab kale aan halkan ku aragnay wadadan dheer waxa kamid ah in hooyo ay gado bukis xanja kuleel ah saakay siday shaqada u soo aaday oo hareeraha laamiga ahna ilaa haddana aan la dhihin meeqa kun waaya taasi waa dareen kale oo xanuun badan way jaban tahay weli se gargaar caafimaadna ma helin sidoo kale waxay ii sheegtay inay deganta guri kira ah ilma agoonana ay haysato halkaas baraafoon iyo bukiskaas xanjaa umbe maanta awoodeeda ay tahay dhammaanteen waxaan jecelnahay adinkuna aad jeceshiin inaan caawinno oo aan garab istaagno si lambarkeedana aan kugu sheegno maadaama ay waajibna saaran ay tahay qof kasta oo mudan in la caawiyo qof kasta oo mudan in loo hadlo TV-ga Hirasho wuxuu jeclaystay inuu la wadaago sheekadan xanuunka badan runtii qorraxda indhahayga ku dhacayso halkan ayay ku qaadatay saaka subaxii hore ilaa hadda oo ah waqti galab ah qorraxduna ay sii dhacayso wayse xanuunsan tahay waxaan sarabaa inaan wax badan ka weydiiyo maama magaca nadiifa sheekh cabdiraxmaan laakiin ma la ii yaqaanaba xaajiyo le dadka ii yaqaana gacanta ka waran gacanta shalay iyo beriga aadan u xanuunsanahay waaba qandhanahay gacanta iyo gacantan meeshaan waxay sheegteen ilmo kala celinaya laga jabay wiilkayga xataa waa galay jugta intaa lagu dhuftay aniga waa kan dhiiggeeda intuu ku arooray madoobaaday anaga bajaajkan ku dhex jirnay marka ninkana waday ilmo yaraa carro ku soo daadiyey bajaajka uu ka soo degay inuu ilmaha la diro anaga markay wiilkayga ka qabta xataa wiilkayga wuu feeray feer weyn oo xoog leh anigana waa kaasa bajaajkii uu sii deeyeyba ilmihii daba naga dhaaf habaryadoo annagaana wadaaya naga dhaaf dhibaataha noo keenin waaba kaas dhibaatada jugtaas makiinadiiba ay yeeshay guriga yaa kugu caawiya guriga ilaahay nin nushilin isiiyo male aniga shaqaalo dowlaan ahaan jiray waagii hore muddo adiga shaqo ma jirto hadda waagaan shaqaynayana dadka aadan u dhaqaaleyn jiray dawladda la shaqaynaysa waxaan u shaqayn jiray Labora Publisher qolo Talyaani aan la shaqayn jiray highway-ga la dhahayo waa yaraa aniga hadda muddo ma quanti aan monche Labora laga joogo 10 sano dawlad ma jirto qasana laga joogo dawlad shaqo la'aan كنت أنا nolosha yaa wax soo gasho maalinta alyamkeen ilaahay iyo anigaas mana tuugsado waxaana wadwadaa bes barfuunkana aad u badan maalinta meeqa keesha barfuunkana waxba marnaa qadada baa ka helaa maraan arkay 7 beri dhala barfuun iyo gadman 7 beri suuqa bajaaj aan $1 ku imaanay $1 gurigii ku noqonay $1 aan imaanayo 7 mar waxa ceebtayna Allah asturo magaaladii ku dhalatay joogta waxa waa iimaanka Allah nagu soo moogta waxaan helna koob shahaadaan laani wiilkayga waa islaamnaa idabaan leenahay dadka tuugsado wareego meelaha asaas gacnaha annagoo saas masaakiin ahaa dhala barfuun hadday noo garantaan kun ka dhiibaa gabaha ahaa sadaqa ah dhala barfuun sadaqa waa dhiiba ma sheeganayo anigoo iska tabaryar ilmahayga aboon yihiin oona tuugsanin haddana waxa yaroo maanta ii gadno wax ducaan ka dhiibaa duco aan ka dhiibaa dhaha hoo ayay dadka Soomaaliyeed dad walaal Ilaahay wax siiya ku daawanayo maxaa qof aan wax ka filanayo male qof jecel inay ku caawiyaan jiraan oo ilaahay nin i caawino ma jirto dhaladaydaas barfuunka hadda raba inay ku caawiyaan hadda walaal jiro walaalahay waaye tolkayga waa i arkay aniga aan rafaadsana oo baahanahay laakiin qof inaan u tagay weli war wax isii ma dhihin anigaaba anoo saas u baahan xabaddan hadda ka gado aan kunka dhiibaa kun kale ka dhiibaa kaali eedo isii xanjo markaan lacag u waayo xanjaday i barsani
waa u bixiyaa sadaqa aniga iga horraysa waaye ma garatay maahina qof aniga hadda oo lambarkaada u sheeg si dadka ku soo caawiyo aniga qof aan wallaahi wax ka filaa ilaa maa allah way lambarkaada sheeg lambarkayga 7 63 64 29 waa kaas daawadayaal sidaa daawanaysaan hooyadan halkan qoraxda aan fadhiyo ayay subax hore soo fadhiistay ilaa haddana way fadhisaa xilli aan halkan maray ayaan arkay waxaan si jeclaystay inaan sheekadeeda baahiyo adinkana idiin soo baahiyay si aad u soo caawisaan ama aad u garab istaagtaan TV-ga Hirasho ayaa sheekadan jeclaystay inuu idiin baahiyo waa hooyo dareen hadashay gacan way jabantaa gacanta kalena jug ayaa ka heeso xanuunaa jira marka waxaan rabnaa ilaahay dartiisna ku soo caawisaan qof kasta wuxuu maanta baxsado berri ay ka horeeyaan maanta waa adduunyo berrina waa aakhiro marka lambarkeedaan shaashadda soo saari doonnaa qof kasta oo mudan in la caawiyo ama loo hadlo inta nafta nugu jirto waa u hadli doonnaa insha allah